asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. wacaanoo wanaagsan meel kastoo aad joogtaan soo dhowaada. waa caaw waxaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala shaqooyinka sida loo helo ama shaqooyinka sida loo apply garaysto. dad baa jaamacado dhameeyey oo hadda iska jiifa xaafadahooda ayagoon shaqo aanan haynin, marka xaafadaha iska jiifo oo qaab maaragtay ama xishood ha ku imaado ama qaab kaleeto oo maaragtay magaaladan shaqo ma taal ha yiraahdaano, si kastaba ha dhahaan. qaabka shaqooyinka loo apply garaysto ayaan ka hadli doonaa caawa insha allahu tacaala. idinkana waxaan idin leeyahay soo dhowaada. marka labaad subscribe-ka, like-tii, share-ka insha allahu tacaala ayaa idinka rajay doonaa, nagu saaciida. okay, shaqooyinka soomaaliya iyo waxaan u kala qaadaynaa shaqooyinka dibadaha sida loo helo, habka loo helo, qaabka loo helo ayaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala. soomaaliya teeda meel inoo taalaa, tan dibaddana meel inoo taalaa. marka insha allahu tacaala waxaan ku hormari doonaa insha allah qaabka shaqada loo helo, habka shaqada loo helo dibadaha insha allahu tacaala. helitaanka shaqooyinka waxaa ka mid ah dhowr waddo oo wax ku ool ah. kuwa ugu muhiimsan, midda ugu horeyso waa inaa website-yada aad ka baarto shaqooyinka. midda labaad waa in baraha bulshada aad ka fiirido shaqada adiga kugu muhiimsan. haddii aad tahay qof shaybaarista, haddaad tahay waa inaad ka raadiso website-yada iyo shaqooyinka qaabka loo soo dhigo. waa inaad maaragtay haddaad tahay farmashiista sidoo kale waa inaad isbitaalada aad raadiso website-yada iyo baraha bulshada qaababka wax loogu soo bandhigto waa inaad raadiso. website-yada shaqooyinka iyo baraha bulshada, la xiriir asxaabtaada oo shaqeeyo ama ayaga asxaabtooda, macnaha asxaabtaada adiga dad baa leedahay, asxaabaa leedahay, saaxiibo, macnaha hadday shaqeeyaan waa inaad la xiriirto oo fildigaada oo kale hadday yihiin waa inaad wareysato oo tiraahdo niyow aniga intaana shaqo la-aan ahay, sidaan baa i haysato, waxaan rabaa in maaragtay shaqo la ii raadiyo si toos ah. midda kale waa inaad si toos ah ula xiriirto qoladii maaragtay waxaa soo baratay ku shaqada lahaa, inaad si toos ah ula xiriirto oo booqato ama website-kooda ha ahaato ama maaragtay xafiiskooda, inaad si toos ah ula xiriirto maaragtay email inaad u dirto ama inaad maaragtay cv-gaada qaadato si toos ah ugu tagto, labadaas mid ah. cv-gaada ha noqdo mid qurxan oo si fiican loo toosiyey, yuusan noqonin cv badan oo aad iyo aad u tiro badan, yuusan noqonin in yaroo kooban oo cv ah. iyo codsi, warqadda codsiga shaqada aad ku codsanaysid waa inaad geysato. maaragtay hadbo shaqada adiga aad rabto inaad qabato waa inaad ula xiriirto sidaa darteed. okay, kor ku qor waxaa ku qortaa luqadda ay tahay, haddii lagu rabo luqadda, haddii la rabo english ama soomaali miday noqoto. hadday dibadda noqoto kolley waxaan rajeynaa inaysan noqonin mid oo ah af soomaali kolley. maaragtay had iyo jeer ku qor shaqada aad taqaanid, xirfadda aad taqaanid, macnaha aad soo baratay, waxyaabaha aad soo baratay. hadday maaragtay mid gacanta laga qabtay ay tahay, macnaha theory haddaa usoo baratay iyo practical haddaa usoo baratay waa inaad meesha ku qorto. aniga waxaad leedahay aniga waxaan ahay qof farmashiiste oo ku takhasusay ama maaragtay si practical u yaqaano dawadan meesha saaran, waxa loo isticmaalo, qaabka loo isticmaalo, iyo maaragtay anigan ku xadgudbeynin maaragtay qaabashinka daawadan aan u bixinayo, aniga aan isku qaldaynin. bilmatalankaba soo qabo omeprazole oo injection oo kaleeto loo qoray, omeprazole oo tabletan dhiibaa oo kaleeto macquul maha. waa inaad iska ilaaliso, macnaha garaamkeeda waa inaad ilaaliso, si fiican aa uga taxadirto. daawada meesha ku qoran warqadda waa inaad akhri karto
dhakhtarka fartuu gacanta kusoo qoray combyuutar keliya maaha inaad ku xirnaato maaha mid combyuutar ah dhakhtarka wuxuu samayn karaa inuu gacanta kusoo qoro had iyo jeer waa inaad ka fikirto luqadda meesha ku qoran haddii aad maaragtay isbitaal aad ka shaqayso inta badan waxaa lagaa rabaa haddii aadan ahayn qof cashier ah combyuutar soo bartay ama accounti soo bartay haddii aadan ahayn ood farmashiista soo baratay waa inaad dhakhtarka gacanta waxa uu ku soo qoray waa inaad taqaano oo si taxadir leh aa maaragtay u qabataa oo daawada aad u bixiso haddii cirbad furosamide lasoo qoray aad dhiibto cirbad miyadriin aad dhiibto cirbad xanuun baabiya diglavenic aad dhiibto qaladka adigaa samaysay dhakhtarka maaha waa inaa akhrinta warqadda gacanta oo kusoo qora dhakhtarka waa inaad taqaanid had iyo jeer theory keliya lama rabo qofka waa inuu theoryna yaqaano practicana yaqaano had iyo jeer waxaan kugula talinaa mar allaale markaa jaamacadda dhammaysid oo fresh aad tahay wax allaale waxaa rabta soo baro ama IT soo baro ama accounti soo baro waxaa lagaa rabaa qoladii ku shaqada lahayd inaad la xiriirto haddii aad cusub tahay oo tahay arday cusub oo fresh ah oo hadda jaamacad kasoo qalin jibiyey waxaa lagaa doonayaa inaad tagto goobaha practicada lagu qaato oo practicada aad kasoo qaato hadday isbitaal tahay sidoo kale waa in maaragtay haddii nursing aad tahay haddii aad tahay sheybaariste haddii aad tahay farmashiiste waa inaad isbitaalada la xiriirto oo tiraahdo niyo aniga waxaan rabaa practicada noocaas iyo noocaas sheybaariste haddaad tahay waa inaad tiraahdo aniga waxaan rabaa sheybaariste ahay qof fresha ahay hadda soo dhameeyey jaamacadda waxaan rabaa practicada noocaasa oo ama 6 bilood aad dalbato ama 1 sano 1 year aad dalbato in haddii ay kaa aqbalaan aad qaadato midda kale waxaan kugula talinaa practicadeeda mar allaan markaa dhammayso isbitaalkaas aad maaragtay practicada ay ku fasaxaan ama 6 bilood ha ahaato ama 1 sano ha ahaato waa inaad qaadato warqaddii oo isbitaalka uu lahaa oo ah qofkan anagu practica naga qaatay 6 biloodoo joogay 1 sanoo joogay intaas warqadeeda uu ku cadaynayo isbitaalka waa inaad ka qaadato had iyo jeer waxay kuu gelaysaa CV-gaada CV-gaaday kuu gelaysaa maanta isbitaalkana practic ka qaadatay waa ka tagtay warqadaa ka qaadatay isbitaal kaleetaa tagtay warqadaa ka qaadatay isbitaal kaleetaa tagtay warqadaa ka qaadatay wixii markii la isku geegeeyo intaba waxay kuu noqonaysaa shahaadadii weyneyd aa wadatay iyo shahaadadan oo kaleeto iyadana u dhiganto CV-yadaada kuu kordhay asna wuxuu u dhigmaa diblooma ama diblooma adoo dhamaysi oo kaleetee u dhigantaa practicada had iyo jeer waxaan kugula talinaa in warqadda isbitaalka aad ka qaadato waqti walba ha noqoto ama 1 month ha noqoto ama 1 year ha noqoto intaba inaad ka qaadato ayaan kugula talin lahaa ardayda hadda dhammaysay jaamacadaha oo practicada qaadanaya midda kale waa inaad samayso maxay ahaydee waa inaad diyaarsato imtixaanka waa inaad diyaarsato isbitaalaad tagtay waxaa lagu yidhi imtixaana gelaysaa intaasoo qofooda imtixaan kugula gelaayo ama waraysi interviewa lagula yeelana waa inaad interviewgaas soo diyaar garoodo oo aad iska diyaariso dadkaa dhex gasho imtixaanka muxuu ku baxayaa waraysiga maxaa waaye oo laga qaadi doono muxuu noqon doonaa practicadeeda qaabkee waraysiga ay u qaadaan interviewga dadkan qaabkee interviewga u qaadaan saan iyo saan ay u qaadaan kan iyo kan ay u qaadaan kan waaye saan waaye waa inaad tiraahdo oo adiga aad ka taxadirto oo aad diyaarsato imtixaankeeda inaad diyaarsato diyaari naftaada waa inaad naftaada diyaariso oo maaragtay kalsooni markaa hor fadhiisato qofka oo maaragtay aad imtixaanka kaa qaadi doono inaad hor fadhiisato oo la tashato maaragtay naftaada ku kalsoonaato si fiican aad isku dejiso saacad ka hor aad maaragtay ilaahay soo tabagasho oo aad maaragtay faatixada soo akhriso si aad u guulaysato insha allahu tacaala aad soo samayso okay hadda waxaan usoo jeesanaynaa insha allahu tacaala hoos ayaan iskula daadigaynaa shaqooyinka soomaaliya ama shaqooyinka soomaaliya ma aha sidaas oo kale waa kuwo aad iyo aad iskaga fudud hadday noqoto interview in la galo imtixaan in la iska qaado qaabishin kaleeto wax loo waxee had iyo jeer waxaa jirta inaa maaragtay aad ka taxadirto oo calaykum salaam ama shaqooyinka soomaaliya saas ma aha laakiin waxaan rajaynaynaa inaad naga sugi doontaa insha allahu tacaala sida ugu dhaqsiyaa badan
waan keeni doonaa insha allahu tacaala. idinkana waxaan idinka rajeynaa subscribe-ta, like-ta iyo share-ta insha allah.